دقوق مهاميرا ودق ما أواميرتا دخاتير توي ناسيسي الله حينا دو xanuunka dunida afeeyay ee lagu magacaabo coronavirus oo loo soo gaabiyo COVID-19 ilaahay subhanahu wa ta'ala horta markooda waxa ka baryaa in xanuunka inaga hayo dalkeenana uusan keenin waxaad ogtihiin in sool ay ku taalo gobol xuduud ay ku taalo gobolada xuduudda ku yaala waxay uga halis badan yihiin gobolada gudaha ku jira in laga soo galo xuduudda waxaan dirs lanahay laba wadan oo Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba sida la sheegay caabuqyada waa lagu sheegay haba yaraatay tiradoodii waxa isduuyaasha gobolka iyo shaqaalaha gobolka iyo dawladda hoose iyo hay'adaha dawladda iyo ciidamada ammaanka iyo dhammaan laamaha gobolka oo dhan waxa la farayaa inay fuliyaan amarkan waxaana la farayaa inay u hoggaansamaan oo aynu fulino inagoo dhani amarkii ka soo baxay guddiga ka hortagga caabuqa coronavirus ee heer qaran ee golaha wasiirada madaxweyne magacaabay waxaanu diyaar u nahay inaanu fulino amarada iyo go'aamada ay guddiga ka hortagga caabuqa coronavirus-ka ee COVID-19 ee heer qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweyne magacaabay ay soo saarto inaanu fulino waa fariimo caafimaad oo ku saabsan ka hortagga cudurka coronavirus si joogto ah ugu farxalo biyo iyo saabuun markaad qufacayso ama hindhisayso ku dabool afka iyo sanka soofte ama masar ama cududaada adoo suxulka soo laabaya kadibna farxalo isku salaama assalaamu calaykum hana iskacan qaadina haddaad muddo 14 cisho gudahood ah ka timid safar dibadda ah oo aad yeelato xumad iyo qufac garaac lambarka heeganka caafimaadka oo ah 988 kala durka laba tallaabo marka aad wada joogtaan gaar ahaan marka aad wada hadlaysaan haddaad isku aragto xumad iyo qufac ha tegin goobaha dadku ku badan yahay sida sariibadaha iskuullada iyo goobaha la midka ah si degdeg ahna ula xidhiidh lambarka heeganka caafimaadka ee ah 988 haddaad doonaysid talo la xidhiidha cudurka coronavirus garaac lambarka heeganka caafimaadka oo ah 988 haddaad ka timid meel ama dal uu ka jiro cudurka coronavirus garaac lambarka heeganka caafimaadka ee 988 14 cisho ee ugu horeeyana ka durug dadka meel gaar ahna isku koob oo cidna ha la kulmin muddadaasi ogow cudurkani ma laha tallaal iyo dawo rasmi ah laakiin waxa uu leeyahay ka hortag sida idin muuqata xanuunkani sida la idin horan la idinku sheegay dawo ma leh dadweynuhu marka dadweynaha gobolka waxaan ka codsanayaa wacyigelinta inay qaataan la shaqeeyaan tiimanka warkaana la isgaarsiiyo iyo saabuun xanuunkan sida la sheegay dawadiisa rasmiga ah wali lama helin talaal ma laha waxa kaliya xanuunkaas laga badbaadi karaa waa kala fogaanshaha in dadku kala fogaadaan magaaladaas camal dhawaan waxa ka bilaaban doona waxaan la sameyn doonaa bandow runtii habeenkii lagu sameeyo oo dhaqsaad degdega masaajidada laftigooda talaal laga yeelan doona marka wax badan runtii aan dadku raali ku noqon laakiin caafimaadkooda lagu ilaalinayo baa soo socda دخاتير توي ناسيسي الله حينا دو